dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariista janno ka waraabiyo kuwa dhaawacayna in la haybayo waxaan leeyahay dhibaatada hala joojo dadka ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka waa dadwada dhexdii isku degaana muddo 4 sanadood socotay tanaasul badan hala sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu Puntland waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxaa ila kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliyan wuxuu ka dambeeyo orag inta markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo timi salaadiintii iyo boqorradii waxaanu heshiis ku gallay in nabad la helo kow number 2 waxaanu heshiis ku gallay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku gallay in wada hadal la furo jabhadan Justice Equality Movement dulmidiid waxay u taagantahay jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eeldariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof qoorta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina Hargeysa qabatay qaybina fadhido Ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii alla yiraahdo inanka yar Cabdiraxmaan la yiraahdo ee suldaanka ee hore u aflagaadeynayay boqorrada ee jaaliyada aflagaadeeyay aad iyo aad baan jaaliyada uga xaalsinaya arrinta ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waa sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doona haddii alla yiraahdo wuxuu ka shaqayn jiray wuxuu ahaan jiray dib baa loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsigani halkan fadhiyo inuu xirsigani I don't know inuu wasiirtiifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhada meel walba